الله الرحمن الرحيم أنا أحمد محمد غمان أنا قدوميها قدية أو تجيل أنا أقوى لي مقع قد تجيلي مرفلة وحان رباينا نالكن آقاهم باليايو مدحوينها جمهورية فدرالكا صوماليا ee lagu doortay magaalada Muqdisho 15 May isagoo halkaasi loolan aad u adag soconayay muddo 15 saacadood oo kula tartamay 39 musharax madaxweyne sidaa daraadeed waxaan leeyahay soo dhawow madaxweyne aan ku hambalyeynaa hambalyo شال مدحوني هوري أيادو تري قبل يقف كيسا دمسترا وعن فيليا أوشي أتكتكتي لغوكن لجيتونكي سويسا إنكستو هوري مدحوني فدرال كاي كوبتلي محمد عبد الله فرماشو وأسنا هوري أوشي دقاتشي waxyaabo ku daray inta hartayna iyo inta hambada oo kaaga tagaysna inaad sii dhamaystirto anoo filaya inaad rarkan 35 sano ee Soomaaliya reer guuraaba iska ahayd dowladnimo ma jirin marka waxaan jeclahay oo aan kaa filayaa inaad meel barwaaqo aan dhurwaa joogin cadow joogin inaad rarka ku furi doonto dhur barwaaqo aad gaarsiin doonto ummadda Soomaaliyeed hadduu Alle idmo waxaan rabaa shala madaxweyne inaan kaala tartaarmo xulista aad xulinayso golahaga wasiirada gaar ahaan ra'iisul wasaaraha inaad si fiican isaga ilaaliso aan waqti kale naga lumin si aan horumar degdeg ah u gaarno golo quality leh golo wasiiro quality leh ra'iisul wasaare quality leh tanaasul leh xirfado leh fahmi kara maamulka hogaaminta leadership nimada التنازلك maadaama aad maanta adigu ay arag hore madaxweyne u soo noqday fahmi kara alladii hore ku qabsaday halka laga haystay maanta si fiican aad waxaaga qaban karto waxa kula jooga laba gudoomiye aqal sare iyo aqal hoose oo ay araga ayagana inaad gacanaha isqabsataan si wada jira aad u badbaadisaan dalkan iyo dadkan baaba'ay shala madaxweyne waxaan kuu rajaynayaa guul iyo horumar iyo cadaalad iyo sinaan inaad ummadda Soomaaliyeed ku hogaamisid dowlad goboleedana haystana inaad kala xaliso arrimaha shabaabna aad xal ka gaarto wada hadal la furto Somalilandna aad wada hadal la furto dowladaha saaxiibada caalamkana wada hadal miisaan leh danta Soomaaliya ku jirta aan dan shisheeye marka hore ku jirin dantayada wayna ku jirtaa arrinkaas ayaan kaa codsanayaa anoo huba inaad tahay qabiir xag aqoon haddana wixii kaa baxsada ay noqonayaan wax yacni aadan ku talagelin ee kama u dhacay inay yihiin ayaan aaminsannahay waxaanu kaa filnaaba waa horumarinta dalkan iyo dadkan jala madaxweyne waxaan ku leeyahay hambalyo
wabilaahi towfiiq.